بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waa salaamaya gaar ahaan bahda warbaahinta oo u soo jeeda TV-ga qaranka iyo inta kale warbaahinta qaranka u soo jeeda iyo inta kale ee ummadda Soomaaliyeed danaheeda u soo jeeda waxaan rabaa in halkan ka cadeeyo dawladda Soomaaliyeed waxa waajib ka saaran yahay inay ilaaliso nabadda bulshada ayna ku dadaasho wax allaala iyo wixii dhibaatada bulshada ku dhici lahayd yareynaya arinta ku saabsan Saadiq Cumar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir dawladdu haddii ay rabto inay tallaab ka qaado saacadii ugu horeysay ayay tallaab ka qaadi kartay laakiin lama qorsheyn arintiisa in wax tallaab laga qaado hadda oo ay ka soo wareegeen maalmo fara badan waxdana oo ku jira dawladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro waxdan oo ku jira ma jiraan xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacab ah weerarkeeda waxdan ah oo dawladda ugu jira ma jiraan mana u qorsheysna marka dawladdu waxa ay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunbooninaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arintaasi ay tahay arin haba yaraatee dawladda Soomaaliyeed aan u qorsheysnayn ma habboona in dhufays laga dhigto xaafado nabdoon oo nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal iyo rabsho aan loo baahnayn waxa kale oo ayaduna muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir inaan baaq u dirno baaqaas oo ah gobolka Banaadir wuxuu soo dhismayay muddo dheer 10 sano ugu dambeysana horumar wanaagsan ayuu gaaray oo xaq walba ah dadkani waxa way dhididkooda iyo dadaalkooda ay iskuul ku dhisteen waxay ku dhisteen isbitaallo waxay ku dhisteen jidad waxay ku dhisteen magaaladoodii mana u baahna maanta haba yaraatee wax dib u dhiga ama khalkhaliya dawladduna ayada hormuudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed marka bulshada Soomaaliyeed meesha degan waa bulsho nabdoon yaan dhibaato la dhaxgeynin yaan dushooda wax lagu abaabulin wax aan dawladda u qorsheysnayn yaan laga been sheegin dadka ku lugta leh laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan ma habboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharaf la ma aha wax dawladdu raacsan taana ma aha qodobka kale wuxuu yahay dad mas'uuliyiin ah ama hadda ah ama xildhibaan ah ama mas'uuliyiin hore ah ama madax ah ayaa waxaad moodaa inay kala furfurka ciidanka iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad oo ay furfurayaan ciidankii qaranka Soomaaliyeed waxaan taasina cid ay dan u tahay male hore loogu soo hingoobay hore loogu soo gubtay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeya siyaasadana waa laga heshiin doonaa siyaasadda waa laga heshiin doonaa isjiidka siyaasaddu waa dhimaan doonaa kala furfurka ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhibaato badan loo soo maray iyo dhiig badan loo soo maray kala furfurkiisa waxaan leenahay laga waantoobo ciidana aysan ku dhiiranin ayaguna ciidanka qarankuna diyaar uma aha in maanta la kala furfuro waxay u taagan yihiin inay nabadeeyaan dadkooda iyo dalkooda oo ay cadawga ka hortagaan ayaga lagu jiifaa ayaga lagu soo toosaa sidaan dhowr jeer hore u sheegnay nabadda beledka lagu haysto iyo karaamada iyo sharafta bulshadu haysato ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa saldhig u ah waana sidaan ku celcelinayno waa dadka ugu karaamo badan ugu sharaf badan oo ummaddaanu ay ku jiifto ay ku soo kacdo ay ku ganacsato ay ku nabdoon tahay marka ciidankaasi kala furfur ma yeeli doono cid isku dayaysa inay kala furfurto oo maleeshiyaad ka dhigto oo beela u abaabushani kuma guuleysanayso waana guuldarro ay u soo hoynayaan ummadda Soomaaliyeed sidaas darteed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa in aan dadka nabdoon aan la dhibaateyn dawladda Soomaaliyeedna mar kale waxay ku celinaysaa inaysan xaafado dad nabdoon degan yihiin in weerar ku qaadayn oo ay doonayso in arrimaha jira si nabdoon wax walba ay ku dhamaadaan aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh